weli waxaad daawanaysaan war wixii gudaha iyo daafaca caalamka laga soo gaaray ee markaana akhbaaraadka dibadda. duufaano sababtay dhimasho iyo burbur hantiyadeed ayaa waxa ay ka dhacday dalal badan oo dhaca qaaradda Yurub, sida warkan ay ku faahfaahinayso Bushra. duufaano xoogan oo ku dhuftay deegaano ku yaala bartamaha iyo koonfurta Yurub ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 12 qof oo ay ku jireen 3 caruur ah. duufaanadaasi ayaa la soo sheegay inay ka dhaceen dalalka Talyaaniga, Austria iyo jasiirad ku taala dalka Faransiiska. dabeelaha oo la tilmaamay inay ku socdeen xawaare dhan 224 kilomitir saacadii iyo rabab mahiigaan ah ayaa burburiyay kaamam ku yaala jasiiradda Corsica, halka magaalada Venice ee dalka Talyaaniga uu gaarsiiyay burbur. duufaanada ayaa daba socday kuleel iyo abaaro muddo bilooyin ah ka jiray inta badan qaaradda Yurub.